ciidamada xoogga dalka iyo Sheekh Mukhtaar Rooboow maamulka gobol iyo degma oo isgarabsadayaan iyo howlgal ku dhan ee nabadgelyada Al-shabaab waa barigii geeka ka qaaday Degaanka Abal oo kumid ee deegaano ku tirsan degmada Xudur xarunta gobolka Boqol Degaanka Abal oo qiyaas ahaan 20 kiiloomitir dhanka koonfur ku beegan magaalada Xudur iyo kumid hay deegaanada kooxda argagixisada ee Al-shabaab iyo ka gumaada jireen shacabka masaakiinta oo ka dhaqanay deegaankaas iyo ciidamada iyo geegalan ku haynta Degaanka Abal ee wareegi iyo waana ku rooreen arxan laawayaashii ka suganayay meelasaymayn ku xirna waliba leen ku dabaseeday fadhiisamadii iyo kala haayeen meel tuulada 9 kiiloomitir ku jarta walibana lagu gubay aqab walaayo yaali oo sidaas oo kale daashishkii oo deganayeen waano iyo ogubada alxamdulillah wa salatu wassalamu ala rasuulillah wa ba'd ilaahi muhaddis saadun unatru namay buaha muddo iraabta hore ma ku kala haneeyay magaalada Xudur oo kamid ah suuqnaahay ciidankii kana ku sugnay ilaa nasriday magaalada xalay ciidanka bari nasru min Allah ma baaragay tanaha ini surunku si aragta ku ruuto burburihay may buu goobogi iyo hata jiifeen han ko iyo kurooren طبعا dadka Soomaalidu goray oo showhan marka walay ku wada roorey uu tagisho iyo kurooren waa ko hata xariijo hata hayna marka dhor xarumuudan lahaayeen xaruntii shanaado kan tuutaata nahabiyuusin aragta digriinay marka nasru min Allah marka ma eediyad aan ka faraxsanahay geeka ninka cadowga in la burburi goobo joon geeka la hayso ma eediyad aan amaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inuu ka jalbad shacabka ku qaabiyaan inta dhaaranta tan ay inta urta ka goorisayaan wayba geeka inta ka adayna ma sheegane Al-shabaab wayba geeka inni is wadanka harun sifay daweer waana ka jabi buushtaadiyana hiradiisu lahayn inta geeka dadku ka soo gubayo era maamulka degmada Xudur isla jarna iskaalmaysaana Maxamuud Haji Mukhtaar kansiilada lahay muddo warooga meel shabaab ku hukumaaya koonfurka Xudur ya ka dhax suugna daashiteeyo haan in koonfurka Xudur markan saadoon lagu bilaw furku ya hajiyaan ilaahay idin shay nimanka mutabaabiyay gardaraysaday shalay aan ka dumoyay inta walaa deegaankan dad edkoogi daleelunga ka kuusan hatana si isluweyne aan la hadaleen أولادي اسم حضورن dirteen hoob xudurha ku taban antisan dhamaadasan walaasay shalay inta ka lahaayeen howlgalkan yakoo yahay ku dib markii Al-shabaab waalidiinta Degaanka Abal iyo ka amareen inay awlaadiyo oo ka jartay ciidamada xoogga dalka ku biyaan hadii oo ku biyo waayaan ciqaabo doonaan maamulka iyo meel fagaare haniska bi shacabkii ka dhaqanayay Degaanka Abal iyadoo waana ku dhaxadaleen inay hal meel han ku wada jeesto ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed oo dhibaato badan ka haaya shacabka masaakiinta oo banaysid dhiijo dhammaan mas'uuliyiinta ciidankii oo maamulka iyo si isku mid ah in la hadaleen shacabka Sheekh Maxamuud waliba horjoogaha ciidanka gaarka ee Mukhtaar Rooboow waliba uu sugu sheegay in shabaab markii hore iyo ka heliyeen diin laakiin markii dambi iyo ku barameen ku dib markii oo arageen qof la gooriyow waaba haysada qabtaana nafhaantiina la san haysada waan isin haysada شباب مسجمل لي قلوف الله يفدي لوجين لي هم هدري رايل هيدك سدايو هندو لي هندو اسم هندا يا شباب ما دون دورون كويان شانسين يتوبيل اور انت سارناي ما دي ويجيت كشرن ما رينا نمن كان بوروغاس يو غورداي غلن ما ها اي لغودن ما ها شانسين بني قاطو اني ديغان كدبلو كو هلو مكاس لي تيغالمو شانسين يتوبيل كدي وني لي تيغالمو كدي ما دي على اوف ونغور يبني هني وير كدي ما دي ددك اوننا انت ka dhawaayani hana weer كدي ما دي goobowsay wala barnaamijkaasi oo raadaka ka tufaani aysan shay jirin meelo toddobaad dheeraad oo ka quraamiyaan كدي meelaha ay weer in ixtiraam iyo leeyahay aan la hayna dadkaas shabaab oo may ka ballanay diina ka ballan diina ku baahay diig muslima binaysden suriyatul khamsa wala rawa ka ballan in diinta muslimka la ilaaliyo saata la ilaali in nafta muslimka la ilaali حجة ما والكلن كدين محكمة ما والكلن كدين ما دي مثلا فيرني ده كل جماعة بيسا حبسلا لا كبير نقدم وجد تلادي قرمي نقدم من ده تولي سمويل قربانو وسمويلي شعب سمويلي إذن ده ما الشعب سمويلي إذن ده شعب يتين ونو مثلا عايشين أنتي ما فلان نفتين ما فلان
وفلان أسات شيء ما مشي حرمتي تفلان إلهي هو برون جيكوي برجفن نمو لرو رمضان ولا الدنيا باقي كلامي إلا لو يعملوا كديرو والدولة اللي رابع هذا مش جهنم ولا جنة مالين قبطري ليس برو جميع إذن برنامج شيء كجرتنا إلهي ونضمك جرنا حديث كجرتنا هو كجرنا إلهي نطلق أذون إن شاء الله وأنا ورثي نطلق أذون إلهي شعب كتير تيجون مسيم كفلان رابط الدولة دي هذا رأسل سنجري كل قرية اللي ما اللي هي إلا لا نقول لا قاعد جرى نقول بلان يدير لكاري ولا قاعد جرى أشياء كور نقول لا قاعد شيء نقول جيل لكاري ولا قاعد يدين كم قاعد شيء وفجرة نقول موبايل لقاعد نقول كل لقاعد نقول جيل لكاري شيء أتلي درو شيء وفجرة أوكي ونحنتي مفلان دلالي ما يلفظ رابط ما دي ونكوين دولة كوين ما قدامي كلام الله ودنكنا ما مرهوب كل سنين نظام أجر الشباب نظام كسر ما يصير شيء عافمات من اللي قبلك ما يوالي الشباب والي هذي لما كنا كين تروح رابط كوي الشباب دله هذي كنين كنا كوي كين كوي الشباب دله بعدين قريو هايته ما يقريو هايته لكن عافمات كين كوي عافمات إلهي هاي لكن تدل هي الدولة هذي كويان ما دي دنيا شباب إني هرمار قال كورسن ونون ما يبغى إني هرمار قال اللي كتيره ما يفضل سينك أصله إني نلشغل تان أتصوي ون ما سينك بنا قال إني سنلشغلين كبتاكين كشغلين ميرسين أنا ما يلنا با دتك أنا اللي تبدأ ما قولي حتى اللي يردو وايرين تبان فيها اللي يرد انترو لمن أذوه قبله انترو كان ما يشغلنا لمن أذوه نقول والله ونقول ليش يقول على سيف براله حرام بقوله كوريتنا بيننا لك شيء ما اللي شيء يكون هذه لا رو انترو حتى بقولي ملاك عليه ولا يجروه لان كده اللي يدوم لا مجرو ولا أسمعنا توي أي نوع لام وارا ولا بوسك لام فيها ولا ما ملاك نقدر تولاتنا بينك شيء مالك استمي كوري سبتم بورا كشيء إسرائيل ميلنا نقدر ولا نستم ما تقول لنا نبأ بنتيو ولا ما سينفوسني ولا سينكدوج مفلان سهرنا مفلان kooxda nabaadiidka ee al-shabaab cabdinuur sheekh aadan yuusuf tv-ga raadiyaha koonfur galbeed deegaanka abal